السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام ومركل يوم قالدين تحنا هاي عافيمات كبلشدة وأين تضوات كان كجهل لدونه دي جيم هذا معلومة كدب كل كي حبيني ذا لكل انتحاج جيدا هو حسوي calaamadaha lagu garan karo dhiigaas hadii aad isku aragtid uur ma iska baari kartaa sidoo kale waxaan ka hadli doonaa dhiigaas wuxuu kaga duwan yahay dhiiga caadada iyo kan dhiciskaba intaba maanta ayaan ka hadli doonaa hadii uu eeba noo ogolaado dhiiga haweeneyda isku aragto 6 ilaa 12 cisho kadib kolkay xaajigeeda la kulantay waxa loo yaqaan implantation bleeding waxaana keeno ku dhagitaanka ay ku dhagaayeen xawadii aabaha iyo ugxaanta gidaarada minka xawadii aabaha iyo ugxaantu waxay ku kulmayeen tubo loo yaqaan fallopian tube oo u dhaxayso minka iyo ugxaansidaha markay kulmaan kadib way isa soo raacayaan oo waxay u soo deganayaan minka ay u soo deganayaan si meeshii ay uga helaan nafaqadii iyo waxyaabihii kale ee u baahnayeen ku dhagitaanka ay ku dhagaayeen gidaarada minka ayaa waxa sababay in ay dilaacaan xididadii yaryar ee gidaarada marayay deedna waxa imaada dhiig ayaa imaada dhiigaas ma ahan mid dhibaateynayo xaaladaada caafimaad iyo kan uu jiifkaba waa dhiig midabkiisu yahay brown oo qafiif ah inta badan wuxuu socdaa saacado ilaa iyo 3 cisho iyo wixii ka badan ayuu socdaa dhiigaas waa calaamadaha ugu horeeya ee uurka sidoo kale waxa la socon karo ama isku arki kartaa calaamado kale oo badan oo sheegayo inuu uur jiro calaamadahaas waxa kamid ah dhiiga caadada labaayo ama istaaga barar ama xanuun iyo danqasho ku yimaada naasaha daal tabardare iyo dibriyo laba aroorti hore madax xanuun calool fadhi ama calool istaag heerkulka jirkaaga bata ama jirka qofka olala sidoo kale habeenada waxay isku aragtaa xanuun aad u yar oo qaybaha hoose ee caloosha wuu ka duwan yahay xanuunka aad dareemaysid xilliga caadada oo wuu ka yar yahay xilliga caadada waxa dareemaysaa xanuun aad u badan maxaa yeelay murqay minka ayaa isku dhagayo si dhiigii ay dibadda uga saaraan balse wuu ka duwan yahay xanuunkan oo wuu ka yar yahay maxay ku kala duwan yihiin dhiiga loo yaqaan implantation bleeding oo habeenka isku arkaan 6 ilaa 12 cisho kadib kolkay xaajigeeda la kulanto iyo dhiiga caadada inta badan dumarku way isku qaldaa way kala duwan yihiin oo waxay ku kala duwan yihiin midabka qadarka iyo inta uu dhiiga u soconayo dhiiga loo yaqaan implantation bleeding waa dhiig midabkiisu yahay brown oo qafiif ah inta badan wuxuu socdaa saacado ilaa 3 cisho iyo wixii ka badan ayuu socdaa inta badan wuxuu yimaadaa 6 ilaa 12 cisho kadib kolkay habeenada la kulantay xaajigeeda balse dhiiga caadada wuu ka duwan yahay oo wuxuu socdaa 4 ilaa 7 cisho ayuu socdaa sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin xanuunka qaybaha hoose ee caloosha ama qabatinka qaybaha hoose ee caloosha dhiiga implantation bleedingka marka uu ku joogo waxa dareemaysaa xanuun aad u yar balse dhiiga caadada wuxuu leeyahay xanuun aad u badan ayuu leeyahay maadaama ay isku imaanayaan murqaha minka si yaani dhiigii iyo wasaqdi kale oo minka uga saaro marka mar walba waxa wanaagsan dhiiga aad isku aragtid muuqaalkiisa ama midabkiisa inaad meel ku qoratid si aad ula wadaagtid dhakhtarkaaga hadii aad isku aragtid dhiig xinjiro leh lehna midabka dhiiga caadada kale oo ay la socdaan xanuun qaybaha hoose ee caloosha iyo gumaarka sidoo kale dhabar xanuun ay la jiraan waxa laga doonayaa inaad la xiriirtid dhakhtar qaabilsan xanuunada dumarka waxa jira xaalado kale oo dhiiga ku keeni kara habeeneeda bilaha hore ee uurka waxaana kamid ah isbedelada hormoonada galmada noocyada kala duwan ee infectionka sidoo kale waxa keeni karo ilmaha ku beerma meel ka baxsan minka sida tubooyinka fallopian tube loo yaqaano ama ectopic pregnancy waxa kale keena dilanka uur ma iska baari kartaa hadii aad isku aragtid dhiigaas loo yaqaano implantation bleeding ha waa iska baari kartaa waliba si fudud ayaa iskaga baari kartaa adigoo gurigaaga jooga ayaa kaadida ka baaraysaa si loo baaro hore ayaan uga soo hadlay fadlan hadii aad doonaysid inaad bartid habka ugu fudud ee loo baaro uurka channelkayga waad ka daawan kartaa balse waxa wanaagsan in aad sugtid hal week ama 7 cisho inaad sugtid markaad isku aragtid dhiigaas kadib si aad u heshid jawaab aad isku haleyn kartid hadii aad ka heshid kaadida waxa laga doonayaa inaad aadid xarumaha caafimaadka si dhiig looga baaro oo si sax ah loogu xaqiijiyo meeshan ku dheh ama xag hoose ugu wac qof walba aad jeceshahay in muuqaalkan uu ka faa'iideysto share gareyna ma doonaysaa inaad ka mid noqoto asxaabteeda fadlan subscribe sa YouTube channelkayga sidoo kale like the page-kayga si aad u heshid talooyin caafimaad iyo cashiro cusub oo aan goordhow soo gelin doono wixii su'aalaha iyo cudurrada aad doonaysid inaad ka soo hadlo waxay ugu soo diri kartaa emailka sidoo kale waxay ugu soo diri kartaa Facebook page-kayga